gurmad ka hiil walaal gabuuhood leh guuliyo gabanimo maxaad rajaynaysaan yaa buuhood la meyd baa dhex yaalla ninkii dhaha buuhoodlaan u socdaa meydkiisaa yaalla buuhood dadkii lahaa baa jooga iyagana kama maqna waa maalayacni wey gurmadkii jiijeerisigiis oo saaka ka ruqaansaday magaalada Shashacade oo qaylqayliyaya oo la colaadan galeynaa degmooyinka gaashaamo iyo daroor iyo dhulka waa la wada degan yahay meesha markii daroor iyo gaashaamo ay soo gurmadaan dhagax buur iyo qabridaarna way soo gurmanayaan horta waxaan leeyahay dawladdu kuwa waa inay xakamaysaa oo dhammaan gaadiidkii dadka soo qaaday dhammaantood ganaax iyo xarig la isugu daro madaxyo badan oo qoyan baa la rabaa inay qalalaan oo qadartoodii yaani maartay la gaaray dabcan haddana la rabaa aakhira seeg inay ku dhintaan sida muuqanaysa waxa weeyaan marka بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بداوضيال كسر دواء برنامج كني دبك هذا عقاب كنا إنه كويجي دونه سان علادات كي وجحو جنائي جرمدي حوجن أو كسي يقول قول يد جمدي لقود دجالمية يقول لقود يبوه هذا ودحي هذا halkee xaalku maraya sidee ayay tahay deegaanada soo saacadihii ugu dambeeyay la soo dhaafay waxa dhinaca iga fadhiya jaamac gala jaamac soo dhow ma sha Allah dhow deegaanadii lagu dagaalamay qori lugud iyo buuhood u dhaxeeyay dagaalka culus oo ka dhacay maalinimadii daraadahay saaka horta xaalku waa sidee بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة سوماليات ميل كستي ويجوجان بوحنا الله سلام الله عليكم أجاس إيو ديجاملاس يعني مرمهم بقى ليلا على ذي أي كتاجني وتاجن تهولي هاي لا واحد لكن إلى أي حد دجاله أو دعي لما سوشيء لكن واحد أنا تاني بالله مكرا أما ساعد والبا يعني سكر دكرا أو لقيا وإنه ما رتي فود ليس قليو حافظين معد بكرة دحجة لا مسير سقبوا ما يا واحد كرا دحجة شيء ما شرته عد أسعتين كرا دحجة شاهنا ما أي شرته تغيراته كان بقى وقدرنا إن شاء الله تعالى برنامج غيبه يصدق به qolada la yiraahdo ogaadeenka iyo dawladda deegaanka Soomaalida labada qolaba baaq baan halkan uga diri doonaa waan maaragtay to yaani sida ay lama huraanka u tahay inay doorkooda qaataan aynu maaragtay to ku fiican waan u tageynaa sidee hadda yihiin meelihii lagu dagaalamay faa'iido oo laga helay meelihii lagu dagaalamay waxa weeye waa goobo lagu dagaalamay maleeshiyaadkii dagaalamay yaa jooga kuwa hor leh oo tira badan waa wareeyda socoto qeyla dhaantii iyo dhulba waa isgaadhay gaar ahaan qoladan dhinaca waqooyiga ama beesha isaan waxa weeye meel aysan hadda yaani meel u hadhay iyo wax u hadhay oo dambe haba yaraatay ma jiraan waxa laga soo baxay aan maqlahay yaani gaashaami iyo daroor iyo kaam abakor iyo maxaan ku rahay dulcad iyo xiriirka qaxootiga yaa laga soo yaa dadkii joogay maca islaamihii iyo kabihii gacanta ku soo qaateen sabab waxaas ay u dhacayaan ma garanayo dadku waa isdili jiray qolo walba meesha yaani meesha joogta umba dagaalama jirtay qolo walba meesha joogta umba ka dagaalama jirtay mooyaane wax hadda heerkan gaarsiisan ma aragtay horay ومين أركيج وين جامعه مقالة دعوضية وكسب سنة أرنتاس وحيليه هو إنه بوهض محيا هاي محل حيال بوهض ميت بعد حيال هاي نكيد بوهض دار وصعدا ميت كيسا يال بوهض دتك لها بتشوله يجرى كمان مغنى وما لا يعني وي ووح هذا أن وح معنا هو يسوق كلنيس السيد هذا بقى أي سجرين حالة أبور إيو كعين إيو أبابل ويان بنا عن كلنا كمان بدنا لما دنا نوم وربا وحي قرمت إيو أود إيو إيطال وهلي كرو يسوع ماركتاي كعين يسوع أبابلية لكن وحا هذا لو يري أوردن ووح بكم تيران مهمة ضد كديجان كم بين نقطة وحا إسكو هذا إسدلا إسكو رمادا هدونا مركا نقر كودا يدلني يرضو إلا كل مات ما لا يكون رمادا حوالها كل شيء دور وعندك الديجانك مهمة مركا وحيد هاي لبنا الدينا دم والبا إن وسلب عقلي سدب وسؤالي
salaadiintii ugaasiyadii hogaamintii garaadadii waxaad moodaa in caqligoodii maqan yahay de salaadiintii ummadan haddii caqligeedii maqan yahay culimada caqligeedii maqan yahay odayaashiiba ay yihiin kuwa dagaalka hogaaminaya dee meesha waxa weeye waa meel ka dhacay wey waa meel in xuni ka talisay naagihiina ay hor dirayaan way durbaankan colaadeeda la tumayo iyo ka kacay iyo waawaray mooyaane ma jira hal qof oo nabad ka hadlaya ilaa iyo hadda waxaan u malayn waxaan aniga adiga ahayn oo nabad ka hadlaya inaysi jir arma inagana arma la aaminsanay beena nabad ka hadlayna hadda maxaan ka hadlaynaa dadkii hawshan u dhaxaysay inaga hikaadiyey labada dhinac ma jira haddii ka tegi weydo saxafigii lagu magacaabi jiray cabdilmaalig muuse coldoon ninkaasi waa ka hadlay ugaaskii guud ee beelaha saaqna waa ka hadlay baa hore uga hadlay isaguna oo leeyahay daa'uud ugaas maxaan ku idhahdaa to maxaa cabdiqaadir ugaas maxaa cabdiqaadir igaarkiisii dhowaan looga dhigay yacni bar isaga bedelay muhiimaddu waxa ay tahay in hadda colkii yacni labada dhinac dhan walba uu dhinaca kale u tookayo oo marya calasta lasoo aruurinayo oo lasoo didayo oo waa waray la leeyahay qolo walbana markaad la hadasho waxay ku dhihi qolada kale aana soo weerartay qolo aaminsan iyadu inay wax weerartay haba yaraatee ma jirto qolo walba waxay ku leedahay in meesha shaydaan ka adeegahayo oo wax kale ka soo socdaan qolo aaminsan iyadu inay wax weerartay ma jirto qolo walba waxay ku leedahay difaac baa ku jira anigu difaacu nafsi yaa baas wax weeraray jin baa weeraray baana siri mise muusa weeraray ilaa iyo hadda qolo aaminsan iyadu in maxaan ku idhaahdaa ay wax weerartay ma jirto qolo walba waxay kitaab jaamaca kuugu maraysaa in la soo weeraray oo iyagu ay difaacu nafsi yihiin waxaad aragtayna way samaynayaan marka meeshan waxaa weeye meeshan madaxyo badan oo qoyan baa la rabaa inay qalalaan oo qadartoodii yacni maaragtay la gaaray dabcan haddana la rabaa aakhira seeg inay ku dhintaan sida muuqanaysa waxaa weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajaynaynaa in dadkan garaadkii iyo garashadii uu u soo celiyo qarni maanta laisu qayla dhaamiyo oo tolla ayaa reer hebeley la yidhaahdo oo la arko rag waaweyn oo galgalanaya oo maxaan ku idhahdaa taqaaqaawan oo qayla dhaaminaya yacni waa mucjizo waa xilligeedii lama joogo qarni jaahiligii waa laga soo baxay casri jaahiligii waa laga yimid dadku maanta duni horu martay bay dhex joogaan waxyaalahaas dayax gacmeedyada iyo balaaya laga sheekaynayaa kuwana taftaa qaawana waa wada qaylinayaan oo hognay oo ba'anaya reer hebel baadaasi ku hayaan marka waxaan leenahay dee ilaahay subxaanahu watacaala ayaa awoodda leh ilaahay qalbigooda khayr ha geliyo kulle kuwa khayr lama aha qalbigii baa qalalay qabyaalad baa qallajisay iimaan la-aan baa qallajisay cuqdad iyo naaxli iyo xumaan iyo foolxumo intaasaa isugu tagtay qulubtii waa wada qallashay mid walba waxaa dhiig buu raadinayaa suu ku geli lahaa malahayga ee qofka aan dhiig yacabka ahayna macnaba kama leh meesha jaamaco dagaalkani mudduu soo socday isagoo wejiyo kala duwan leh wax hadda isku cusub oo hadda la leeyahay way isku qamaamayaane ha laysu yaradaayane ma ah oo wax badan baynu markhaati ka ahayn labadii sano ama sanadii barkii u dambeeyey hadda gurmadyadan aan ka sheekaynayna dhankan uu nisaaqa kama imanin iyo waqooyigee dhankan galan waagii hore marka qolada meesha la joogo laascaanood lagu dagaalamay maantana kuwii kala soo dhacay reer hebel baa yimid waa wareey hadda malagiinu galay kuwani marxaladii bay hadda ku jiraan tabtii 2 sano ka hor ay ahayd laascaanood maantana kii kala yimid ciisa soo dhacay ciida gala yimid maxaa ku idhahdaa to sambuur baa kacay nuur baa yimid yani waxa weeye waa nasiib daro kuwaasi dulmi bay lagu jiray marka iyada ah wax la diidi karo oo laga hor imaan kara ahayd dad deegaankoodii iyo dhulkoodii ee daro looguna tagay bay ahayd laakiin maanta nin walba deegaankiisa uu jooga sababta la isku dili kara maxay tahay sababta la isku dili karo haday rabaan inay si fiican isu dilaan annaga shacabka u tumayna waa sii wadaynaa nag markay noqdaan waxa weeye yaan ay xagga uga riixayna maxaa inta yar soo hadhay waa iska xabaalayna shalay sadiga laha cid kale inoo buuxin doonta haday nag noqdaan
ما عد كلا ما الحوقني كوي مدان مويه وما أقولان إن إسكي مدان وي يا ودو وهاوشان حالك كيني كرا نيو هاوشان هرتا مركب كوبان دولة الديان كسومالي ده دولة الديان كسومالي ده يعني إسلاه واتقوم معقول سن دولة الديان كسومالي ده حنركينا ضد ديان كسومالي ده وقيل قيلية oo colaadan galayna degmooyinka gaashaamo iyo daroor iyo dhulka wala wada degan yahay meesha markii daroor iyo gaashaamo ay soo gurmadaan dhagax buur iyo qabridaarna way soo gurmanayaan horta waxaan leeyahay dawladdu kuwa waa inay xakamaysaa oo dhammaan gaadiidkii dadka soo qaaday dhammaantood ganaax iyo xarig la isugu daro sababtoo amni darro iyo colaad bay kicinayaan hadday sii baahdana gobolka oo dhan bay ku baahaysaa gobolka oo dhan hadday ku baahdana ninkay u daraanayso waa la arki doonaa oo meeshii dee cid ka faa'iideysa ma ay jirto dhul nabada in hadda dab lagu dhajiyo may wax la qaadan karo wax la aqbali kara maaha waa in hay'adaha ammaanka ee dawladda deegaanka Soomaalidu tallaabo sharciya oo degdeg ay ka qaadan horta gaadiidleydaas dadka daabulaya ninkii baxaya lugaynaya iyo gaari wax qaadaya taasoo ka meesha dawlad baa ka jirta ماشي النظام باكجرة الشرعي باكجرة كشغينية والنظام كا شرعي اللي قاعد بصدا والشرعي وشغيو سمعت كده كوا هرت وين لا حساب تم نيجي بحيا إذا قاضي سو أير أمس الرير كل دوس وقعت تدقال كهكير لكن سو بحي مركو يدهلو تدت كده ما يرمى كوا أهليهم بقرب دقني سجن وين الوسوا قمام الرباع الوسوا ياعو برت لا يعسل والله هو حوي باهدي waxaan leeyahay marka dadka deegaankaas ku dhaqan nabadiina ilaashada ninkii dagaal doonanaya ee rabo inuu soo dhinto waa soo dhimane soo aad qorligu halka imaato xaga ka sii jeesto xabad kulul shafkay kaaga dhici waa caadi taas marka waxaan leeyahay horta tan deegaanka Soomaalida waa in kula daarashada la daayo oo marka wuxuu ay colaad tahay ee dhiig daadanayo dadkii waa isku mid meel walba joogaa lugta la isku marinaya daroor bay ka dhacaysaa gaashaamay ka dhacaysaa meel kastoo kale ka dhacaysaa marka gobolkii oo dhan iyo aagga oo dhan baa isla gubanaya meel lagu nabdo ama meel lagu noolaado yaa ciriiri noqonaysa si marka taa looga baaqsado dawladda deegaanka Soomaaliyeed ayadaa laga rabaa maamulka jooga degmooyinkaas hadda qayladhaantu ay ka soo baxaysa muddo Hargeysa Burco inay joogaan waa in la xisaabtama in maamulkaasi ay talaabo ka qaadaan xagee jireen maamulkaas baabuurta xitaa qoriyaal la saaran yahay meesha dawlad miis ya waa ma qiiradii qabyaalada meesha ka baxdo yaa ka badatay in degmadani aysan nabad ahaanaynin hadday halkan ka duusho oo ta ku xigta dawladka maxaa la rahaayto gaashaami iyo meesha la yiraahdo iyo dano waxba isuma jiraan gaashaami iyo danood baa diriraya gaashaamo iyo danoodna nabad bay hadda ku wada nool yihiin tani marka waa nabad di gaashaamo iyo danood oo la isku horgeynayo col loo bedelay marka dawladdu waa inta ayna taasi dhicin hadii dawladdu daciif ay noqoto oo ay noqoto de wax baqtiyo meesha iska jooga oo aan macna lahayn reeraha ka awood badanaya marka Soomaaliya garan reeraha ka awood badanaya marka reeruhu waa inaanay awood yeelan awood waa inay dawladdu yeelato ko odayaasha beesha ogaadeen ama absamada waxa la yiraahdaa ndho waxaan leeyahay fadhiga ka kac dagaal u kacamisay maya subhana malakul qudus oo fadhiga ka kac maanta waa kuwa ugu dhow nabad iyo dadka inay wada hadashiyaan saddexda beelood waa saddex beelood oo taariikh wadaaga dhulbahante isaaq iyo ogaadeen waa saddexda beelood ee taariikhda Soomaaliya sideedaba aasaaska u ah haddaad maqasho taariikh Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaalinimada waa meesha uu ka soo bilowday unuga Soomaalinimada yaa lagu tilmaami karaa si fiican waa dadka yani wax badan oo yani maanta la dhihi karo waa sidaas yani intooda badan ku sifaysa waxaan leeyahay maanta saddexdiinii dhoomood ee taariikhdan guunka ah ee Soomaalinimada lahaa ee wax badan u soo joogay يعني واحد كجد وانتهين باشر الصومالي
سفيعة وضد رقم وذاك دليل وذاك أما ديق وذاك أما درير وذاك وضد تاريخ دا iyo maxaan ku dhahay dhitadeeda hadana iyo wadaaga waa dad dhan walba wax isugu ah saddexdood si fiican dadkan wax walba wadaaga inay wax walba wadaag noqdaan waxa keenaya waa dhul wadaagto aad waliba dhulkaasi soo deganayeen boqolaal sano isriyanayeen marar waxa jira inta badanna laba kamid ah dhinacyadaas dhan kaba soo wada jeesadaan saddexdoodaba waa isdilaan saddexdooda waa isla meereystaan marmar waxa jira laakiin xogaa hadda xilligii yani xilliyadii daraawiishta eeriyadeedii xilligii reed waagii cali nuux uu tiri jiray gabaygii ahaa doqonkii ogaadeen ahaa dowlad laga qaad way isla socdeen iyo doorkii rubaantu reed wax noocaas la dhihi jiray geeli hagogar waa yagi qaaday soo hada markii xiliyada laga yimaado oo yaani waa markii koowaad malahayga habar jeclo habar yoonis iyo rubaanta wada socda ay ogaadeen ku soo wada duuleeyay geel ka qaadeen saafilayo waa xilligaas ay ahayd baro malaynaya si fiican inta kale dhan waliba dhinaciisa yuu maaragtay to dhinaca kale yuu lid ugu yahay waa dadka taariikhda leh haddana waligood aan kala tagin haddana wiil iyo abtigii haddana sodog iyo seedigii dhexdoodana naxli iyo xumaan aysan oolin maantana isdila berina wada jooga waxaan leeyahay marka odayaasha ogaadeen waxaan u soo qaadanayaa absame way ku fiican lahayd laakiin absame dhihi mahayo ogaadeen baan leeyahay qoladan ogaadeen kale yiraahdo waagi hore dad saameyn lahay ahaayeen dad deeq iyo dirir iyo dadnimaba lah bay ahaayeen hadda dhiho ma garanaya wax ku dhacay dadkii inkaar baa ku dhacday baalkooda qoyan way heer magaalooyinka طبعا ها انا حاسه على غير مله عشان دي لو يلو زي دران اسلام تداو ور kala qabo meeqaan ku kala qabtaa buu wala way isii isdilahay halkaas ka taagni yaani odayaashii wax kale noqdeen waxaan ugu baaqayaa odayaasha beeshaas aan magac dhabay war magaciin baa meesha ka kacab maanta maalinkiinii baa la joogaa waxa meesha isku laynaya waa bahdiin waa kuwii aad dhaqan dhaliyo dhiig iyo dhurba aad wadaagayseen way maanta sida ay wax ku socdaanna waxa hubaal haday ku socdaan dhibaato baaxad leh meesha inay ka dhacayso kala carari maayaan kala guulaysan maayaan waa isku dhamaanayaan waa xoolo meeshaas يعني يسوقه بروسدي ومن والبا midka kale wuxuu leeyahay hadad ka cararto waa ceeb oo la isugu gabiyo oo la isugu geeraari oo waxba la sheegi gabayo iyo geeraar iyo balaaya laga cabsanaya warintayna taad cilmaha reeyal kaca oo dawladda deegaanka Soomaalidu dar Ilaahay inkastoo dib waxa siyaasad ay tahay oo maamuladii dhinaca siyaasadda lagu kala duwan yahay haddana dawladda deegaanka Soomaalidu waana ka qayb qaadato nabadana waa inay ka qayb qaadato gada la dirayana waa inay ka qayb qaadato gudaha deegaanka Soomaalidana dadka waa in si dhab ah loo xakameeyo dawladda deegaanka dhab ah waa in loo xakameeyo waxaan leeyahay marka waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ina faray waa ficil alle ina faray oo ay tahay in la fuliyo maanta kale markii sidan ay tahay وطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وور ونكسنه مهمة أن نصعد وحوي وارتقى ماشا وواجب ليجن إنها تشوشيسان وأدتك كان رحقشان وأدتك مصلحة كدحرادسان وواجب أضياشا أبسامي أما أوغادين قراد محمد هداية بشير قراد أحمد قراد مختل ظاهر وقاس دولني وقاس محمد دولني صلاة دينتي وقادين ودون واتشوغان معقول كاها قراد كي أبسامي واتشوغان وين داد كاسي أي ماشي آذان وداد كان يعني حتى أيها مسالح ذو ضوائنا وطيانا داد كان مسالح ذو شامعوا حاجته هان لنا كما قلت انتهي deegaanka fariimo fara badan baad u dirtay odayaashii ogaadeen fariimo fara badan baad u dirtay oo nabadeed dawlad deegaanku
nabadda ay wax ka qaban karto ama wax ka geli karto halkay taala hadii dawladda Somaliland aysan iyadu diyaar ba Somaliland dawlad ma hadii Somaliland dawlad ma huwa maamulkii meesha ka jiray maamul weeyaan nidaam dawli oo shaqeyn kara kana jiray ee Somaliland waa ka meeshan ka dagaalamaysa waa beel weey marka Somaliland maqasho waa beesha isaaq Somaliland waa naanays محل SSC خاتمه وناريس وارول بهانته لما دولة فاحسن بيا هاينه ها أمريكا دي تان دوجان كسوماليدو ودولة لا قونسية هي وعيدا له وشرعية ودل اللي هذا يتوبيا ودولة وينه قديمة هوستكتا سومالي كرام وميليتري يتوبيا أديك سنكرتا ليو بوليسكي أديك سنكرتا بوليسك عادية هي أديك سنكرتا أود كسته أو أيلا هاي يستعمالك كرتا تان دوجان كسوماليدو سلا دراديد waa inay horta gudaha deegaankeeda dadka degan ee ehelka ah ee colaada qaarkood ay u bu'ayaan kuwa waa in horta garka la qabto la gilgilo weey gaadiidkana waa in xabsiga la dhigo la ganaaxo sababta colaadii ka jirtay gudaha Soomaaliya iyo halkan u soo raraya anaga taana ma anfacayso maanta in la yiraahdo hadana maxaan ku raad dagaalkii baa baahay oo meel hebla gaaray wax macna ah oo ay keenaysaa ma ay jirto ما يجدو نبضنا إيادا أيا وحلقوا يهي ما أنت جرحتشس يوجدين على تحضر كذا على هدي جرحتشس أي دناين أيام وصلوا ويننا وأركنا لكن ما لينا يو إما حس ماتي يا وحويان وحن لو بحنين كشكاينيسا نبض ضد كسيل لو إلاليو وإن جاشامو ضرور يدمان دول كإساق جودها ديان كسومالي دعاهي أي بناك كتشوجان هذا هذا يعني صمها أيوة إذا بلو أمسن حاجة كسوريان لكن هذا يحل سمايو ويحاول نوع جبنية إن جينا ضد وحين نقول إن مال والب إسكميده هو جبنية ومال الله بحصله يعني إساق وأنا أصاب بحصلان ديان كسومالي إساق وجودها سومالي لهم كشيء ربعانت ويدقيهين colaad di marka halka lagu dagaalamay halkan hadii loo soo raro xagee loo badbaadaya xagee loo nabad noqonaysa waxaan leenahay deegaanka Soomaalidu waa inay qaadaan talaabada ugu adag ee horta dhinaca amniga ah waa inay gorgortantaa ka gelin odayaasha dhaqanka ee bahdilan ee inkaartu ku dhacday ee ma garanayo anigu masiibadu meel ay kaga habsatay dadkii dad ahaa dadkay dhaleen amar bay noqdeen qof nimankii de kala celin waay laba jifo oo walaa Ismaaciil Gumcadi Ibrahim way horta waxaan la hadlay soo agara hadana saasoo tahay wali kama naaqoosano madax muuqda iyo mindisa wira minna laga maartay waxa la qoosto warkaca oo dadkan ehelkiina ah islaynaya kala dhex galaan leenahay si gaaraan labada reero hadana ugu farayaan anigu fariir ugu faraya ruuxa doontaan ay misanada nabad ku wada noolaa ilaahay intaad isdishaan inaydan kala adkaanin بن يخيالي نين ولبا ما أنت تولدي سيبو تشوجا نين ولبا ما أنت تولدي سيبو تشوجا إساقو هديرو البانتا إذن دلمي ولا لي الدفاع حد هالكينا تشوجا تطوّل يارتان محنكو إلى هذا عمران كينية سنبور كينا مركز ماشي سوتي معدان حضينا دلمي كوسو عن عارف دفاع حد بهديرو البانتا نسوي الرواركينا دول بهانتو هادي أيضاً دلمي كوسعني ديجان كيني تشوج الدفاع حد هالكيني تشوج هدي ساق يسوي الروال أركي ولا بواحد كل هذا كلام نسوي الرا ولا بقى ده ماشي ولا وده دقيقة هي وحنلاقينا هاي مركب ونبض كود دالة وحن نبض هاي ويل سوماليات أو مانت النور يعني لقى شقين غيري دي سبري لبا قول ضرو غيري يعذب آخره والله بالله ووضع أهل النار هل كذا كقول أنت أقول سأودينه قارب waxay ku doodayaan difaacu nafsi baan ur difaacu nafsi idha altaqa almuslimaani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar mashanta geed iyo muxuu ah meesha galgalam yahay ay magaca u sheegahayeen galgal ha waa geedo hoostood wa geedo hoostood baa difaacu nafsiya yaa dhul qaadaya yaa dhul laga qaadaya dadku waxaad moodaa yani markaad sii fiiriso meesha bini dadku bini aadanba ma had leedahay markaad sii dhowrto واحد ذكر الله دمانه كع وحصلنا واحد عقل ما وده شيطان هجامنا يوي والهجان كشيء كفر أضياشة لا بدأ دينا والعقل جوهيدين صار نقطة أضيجي
أضيق راعي اللي قريب حوها قرات عبد الرزاق صوفي سفي عم بوهل نمع كلام سلو كلام كربنا نبض واحد كويدين عراد كوهي الميسان لبدا دينا هدي قف يا خالد دعي قف يا خالد waa dhaca waa qoladii sameysana way is ogtay kuwii lagu sameeyayna way is ogyihiin war garama oo rag baa tihiin nabadda ka shaqeeyay geesinimadu waa nabadda oo lagu dhiirado ninka ragga maalinkay khadhaadhahay rag ka soo baxay waa ninka ku dhacay yeesha ar markii la yiraahdo waa kan ninka yiraahdo anu wallahi maanta waa ku dhici lahaa nabaddaas laakiin meesheedii baan joogin laakiin haddana waanu sheegayaayo nabad baa idin deeqda annagana na deeqda innaga oo dhanna wax inoo ahe nabad baa naas la nuugay hadii la waayo waa caadi waxa soconaya maxaa birta la iskaas leeyahay ho ma santa jamaa galad intaas ayaan jecelahay daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyno qodobkeenna intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.